hooyada qofka hadduu lumiyo si fudud buu markaasi u milmaya waad milmaysaa hooyadan rabnaa waa maxay aad lumisay والاعتزاز بدينك وبعقيدتك وبمبادئك وبالكتاب والسنة وإن تكفانته موجستد إن مسلم تهي إلهي محولي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا كور في عمبا إلهي إليك دتك الدين توقيره إيساقنا دقك ونكسن كفانا كبير له وروه ينقو مسلم كان كميدا هيكون واقعيا يعتز بديني اعتزاز بنادم كو قلبك وكتشبه هدي مركاسي أيضا تتقاق ولموه عقائدي أخلاقياتك فاليوسك والدين تادي دقكاغي الثقافة تادي أفكاغي هدي لونتو دمير دار راعد باد نورسا مركا وحاضرك تبعد كل ضيطا دارك الدونتا مركا سوء البحر نمضا وهيستا أو كله مودرنايزيشن وحداثة ومحل عصرانية هذا وقت قال لما سعتي وذا واحد شوكتا قرني أفريا طبنات بعض تقول نوش قرني أفريا طبنات عيب ما وحا عيبه dadku inuu dadnimadii bini aadamnimada ka lumo qarniga 14aad hortiina dad fiican baa noolaan jiray kuwa dambana dad fiican baa zamanku maaha ee waa bini aadamka iyo values ku haysto bini aadamka iyo values ka haysto weeyaan caalamku maanta wuxuu xidhan yahay dad badan inay dadka diinta ka saaraan ilaahayna quraankiisa wuxuu ku leeyahay wadda kathiirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di iimanikum kuffara in badan oo ahlu kitaabka kamid ah waxay jecel yihiin diintiina inay idin ka saaraan oo gaala idin ka dhigaan hasadan min cindi anfusihim laakiin imka iyagiina waa laga saarayba nin sheekh Soomaaliyeed oo jaamacadka reer galbeedka jooga wuxuu yiri jaamacadda markaan soo galo oday kristana jooga buu yiri odayga sidaan walaalanaan laabta sasaraa buu yiri waa inta kale professoradu ilaahay ma rumaysna buu yiri marka kanu يعني كان بي إسدويستين مركو أركي دتك كله هالك أيسي مريا أيها الأحبة حلنا وحنو بهني دقكني أفكني عقيدتني دينتني إنه إلى لنا إنه دائرتين يرير كسر ربينا لقمانين إنكيسي مركو لتلني وحو قبل أبا إلهي إنك اللقمان لا يراهضه oo xikmad lagu tilmaamay oo laynoo soo naqliyay xikmadda wax ka mid ah ilmihiisi uu la talinayay ilmihiisa talooyinku siiyay saddex shay bay ku koobnaayeen aqeeda oo uga bilaabay ilaahay inuu baro inuu cibaadaysto rabbigii caabudo iyo dhaqan fiican inuu dadka kula dhaqmo intaas uu kula talinayay وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله المهيجي يرايو إلهي وشريك يلن سببت وامحي إن الشرك لظلم عظيم شرك هو ظلم وين وعد على درده وين هذا ما أنت النول حقوق ما مقشان سماها حقوق دا حولها حقوق دا درتا حقوق دا بني آدمك حقوق دا دمرك حقوق دا عرورتا حقوق دا كذا وحقوق دا إلهي كورمية ماركتين بسبب خلقاتكم بحقوق لا إلهي حق ماله إلهي بقى حق وين حق يصير وين لا عبده سيدا وجد باللقمان وحوجا بلابي المهيسي إنه عقيدة ده الصحة وأشياء جنا حق إلهي إنه يهين لا عبده أو أشياء جنا الظلم تو إلهي حق يصل الظلمين أيه إنه شريك يلا ده بتنوع وسيت الماما كوح الله إن لقى صاب بلابه المهير إلهي أنت وحبرش الصعطة أصل كوحبرش هذا وين هوية مجتمع على السوق دوني ده وزارة ده وحبرش هذا شقد كوادا يقبتوام حي وأمد هوية دينا إلى السوق كدبنا التعليم كوقدرته أنت بدن جامعات قالوا قلت لك على علمي جي بحثي جي وحبرش هذا الرسمي جا تاني هو تريننج هوسه oo bulsho wax wada akhrido bulshada ka tirsan in la soo saaro ay tacliintan oo soo dhamitahay laakiin
muhiimadda koowaad ee waxaasoo dhan ka weyni waa inay bulshada identitygeeda ilaaliso ummadaha haddii ay homogeneous group noqdaan dad afkaarta iyo dhaqanka iyo caqaa'idda isku waafaqsan maamulkoodu wuu fududaadaa haddii uu khalkhalku tiro batana ummadda waxa adkaata sidaa loo maamulo soomaali waxay idin maamulkeedu fududaado laakiin laba mushkilo yaryar oo ay leeyihiin baa weli loo taaglaayay mushkiladda qabiilka ku saabsan iyo mushkiladan faqriga iyo balwadda ishuwan ku saabsan labada mushkiladood Soomaalida mushkiladooda wixii intaa ka sarreeya waa jahli aqoon darro aynu dunida sida wax loo noqdana inaan aqoonin haddii la murmo sida loo xalilana inaan aqoonin xabad mooyaane waxaan u malaynayaa waqtigu inuu iska gabagabayay mala salaadkiina soo dhowiyay waxaan isku dayayaa inaan iska koobo dunidu maanta way isu furantay nin walibana ceesaantii buu ceel keenay cid waliba inay afkaarteeda faafisaabay ku tala gashay cid waliba miisaaniyad iyo akademiyo iyo aqoon-yahano iyo waxbay u diyaarsadeen waxooda inay wadaan innaguse waxaad moodaa inaynu dayacannay waa caalamul islaami kow ciddii maamulaysay iyadu waxay rumaysnayd bay la dagaalantaa caalamul islaami dowladaha ka jira waxa koowaad cadawga koowaad diintay u arkaan cadawgooda koowaad diin bay u arkaan aqoon-yahankoodana xabsigay ku hubiyaan oo dadka ugu dunida kale mujrimkaa la xidhaa caalamul islaamigana aqoon-yahankaa la xidhaa inta wax garanaysuunbaa xabsiga lagu guraa ummad mujrimkana sii daysa inta wax garanaysana xidhaa dee waa ummad meelaan dhoweyn ku socota marka waxaan idiin soo jeedinaya waxa weeyaan waddankan aynu degannahay idinka u aqoon-yahano dadkii u soo baxayaya haddii idinka identitygiinuba uu labaclabac yahay mustaqbalka waddankani waa madow haddaa idinku dad sugban noqotaan barritaa ummadda inta kalena sugi karaysaan inaad sugantaan waxay u baahan tahay inaad diintiina barataan inaad culturekiina barataan inaad afkiina barataan inaad ku faantaan inferiority complex inaad ka qaadin waxaad rumaysantay wax la qariyo maaha wax la qariyo saxaabi baadiye ka yimi ayaa boqorkii beershiya markuu yidhi maxaa u soo baxdeen wuxuu yidhi waxaan u soo baxnay linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illah allahu ibtacathanaa buu yidhi ilaahay baa na soo saara wax naloo soo saaray bini aadamka is addoonsanaya inaanu ka saarro ilaahay dadka addoommo uga dhigno xurriya baanu wadnaa buu leeyahy waa qof mabaadi'du sitay rumaysnaa oo rabay inuu soo bandhigo u dagaalamayay innaguna wixii diinteennu sheegaysayna waa laga xishoonayaaba xagga hoosey ku jiraan inanka akademiga ahi inuu af ingiriisiga iyo ku faanaa buu jecel yahay xogaaga ingiriisiga markuu ku hadlo ama paper af ingiriisi ku qoran markuu soo qoro wuxuu soo arkayaa nin mutacallim oo khatar ah inuu yahay ama haddii la yidhahdo arkaanul islaamka bal ka warran waa iska dee wixii arrintii malcaamadda lagu hayn jiru maad wadaa buu leeyahay wuxuu haystaa malcaamadaha iyo dugsi quraanada iyo meelaha wax lagaga sheekeeyana taada waa idhanta tigiisii waa wuxuu aadanaha kale kaga socnaa marka waxaan kusoo gebagabaynayaa dad akademiga baatiin waa inaana idhanta tigiinu lumin isla markaana waa ina caalanka ina idhanta tiga ummaddan u sugtaan waa ina idinku qaadaan haddaa idinku xambaartaan da'yarta waa idinku dayanaysa haddaase idinku da'yarta lumisaan dee ummadda tan ilaahay bay leedahay subxaana wa tacaala وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين